maanta ay taariikhdu tahay 18 bishii 12 2019 waxay maxkamadda sinaanta iyo cadaaladda hambaliyo u diraysaa Lii Caato ina warsan YouTube Lii Caato markuu aqbalay go'aankii ka soo yeeray maxkamadda sinaanta iyo cadaaladda taariikhdu markay ahayd 13 bishii 12 2019 sidoo kale maxkamaddu waxay Lii Caato ugu deeqday $10,000 ah iyo 2 fas gees oo dahab ah sidoo kale Lii Caato waxaa lagu wargelinayaa in Muniir oosan soo agdhawaysan karin muddada loo yaqaan 7 maalin ee 7 ah sidoo kale maxkamadda waxay cafis u fidisay Najiib Aadan Najiib oo lagu soo eedeeyay inuu is cadeeyay sidoo kale maxkamadda markay aragtay cadeemo dhowr ah oo iskugu jiro sawiro iyo farshaxan waxay maxkamadda qoonsatay in Najiib Aadan Najiib oo xur yahay xabsigana laga sii daay doono wixii racfaana iyo dib u hadal maxkamadda waxay noo furmaysaa 21 bishii 12 2019 maxkamadda waa noo xiran بسم الله مانتا تاريخ تعافر توان كبش كوي توانات لابكم سيالي توان وحي محكمة السنات يعدال حكم كوريدي إذا سنة لي بليل إنا فاضمه بوفس إذا سنة لي عاتو إنا ورسن يوتيوب لودن إذا سنة أولوسو إذا إنا عاتو حتنافة أنا كوس من عبرك وزارة عافيماتك إدو جسي أو 40 كيلو لودن إذا سنة أوكل لي بليل إنو ياي 60 كيلو sidoo kale Lii Caato oo yahay 37 kiilo marka maxkamadda sinaanta iyo cadaaladda waxay go'aamisay in Lii Caato oo guursado fanaanada caanka ah Fartuun Balbalaarka nidaamka la toosiyo sidoo kale eedeysana Lii Baliil ayaa lagu eedeeyay sidoo inuu guursado maamo Faranko oo ku nool Australia waxay maxkamadda ka codsanaysaa maamo Faranko iyo Fartuun Balbalaarka inaysan ku xujeenin labadan xidig lacag iyo dahab iyo maalba